الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا أن جعلهاي يقال الصعودة برتن فيسبوك ميل كستو أجوكتان عاندكو سلامي صلاة الإسلام كوحان إلهي سبحانه وتعالى أنا إذن كبا إذن رجينا يا عافمات يا عمل صالحة iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala Soomaali meel kasto ay joogto gudo iyo dibadba inuu ilaahay ku nabad yeelo ilaahayna subxaanahu wa ta'ala barwaaqo iyo caafimaad iyo nabadgeliyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku siiyo meel kasto ay joogaan nabigeenu kaleey salaatu wasalaam nolosha adduunka saddex arrimood ayuu ku soo koobay wuxuu yiri man baata aamina fi sirbihi mu'aafan fi jasadihi 'indahu qutu yawmihi فكأنما حيزت له الدنيا قفكي الدنيا صدح الرموض هايستا أما كوا بريستا نبتقليه إنو أصيحضي هو يقيسا إنو عافماد قبو وجركيسا عافماد قبو ومال حنونيسا يا مال ماركتي ولطاهايو آني جرين iyo inuu quutal yoomka maalintaas uu haysto saddexda arrimood qofkii haysta adduunyadii waxba kama dhinna ayuu yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam dhamaan way u dhantahay adduunkana waxa loo ordayo oo loo dig iyo dam leeyahay waa saddexda arrimood way waa quudkii halka la marin lahaa oo bani aadamku ku noolaan lahaa nabadgeliye meel uu seexdo naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa sharaftiisa u nabadelo caafimaad jirkiisu uu qabo oo aanu maaragtay wax laxaw ah iyo wax dhib ah aanu qabo ilaahay waxaan idinka baryayaa meel kasto aad joogtaan saddexdaas ba inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga iyo muslimiinta ba ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu noogu deeqo aakhirana ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu jannadiisa nageeyo kuwa amalka saalixa la yimaada ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naga dhigo taasa lagu liibaana aakhiro ilaahayna subxaanahu wa ta'ala uu وقلديسا كبحيا آخر وتقوى إلهي سبحانه وتعالى مركا وحان صدر دار منا تقوى إلهي سبحانه وتعالى وآخرة أينو كل بان إلهي الدنيا دنا أسبابتي أينو تقوى أسكو قادن الله هنا وصدح ذا أرمو ذي ومهم سيهين أيان يري وين إلهي سبحانه وتعالى كبرين وحنجعل هاي دور أرموت إنان إن شاء الله تعالى كلان كان كوبان آن كسو دايو laba waa hordhac midi waxa weeye tacsi marka hore aan ka tacsiyeenayo laba odayaasha Soomaaliyeed kamida oo labadan maalmood dhintay maantana aan filayo aaskoodii inuu Soomaaliya ka dhacayo oo waxa weeye in Maxamed Cabdi Xaashi ninna uu ahaa Xasan Abshir Maxamed Cabdi Xaashi wuxuu ahaan jiray ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland لبكون يا لبادي من صدح دي ما فيليا آخر كذي مرآن جرو ومريي أيها يقدم بيسي إنان كل مه أقل كم مدحتو يد وأن مركز أنا جولو دعوة أقول جرو بور مكسو قلابتي إلى بوصاصو عن مركز هو يجيسا أنا كل الناي وقار قلابه نقو قابلي إلهي هون حرستو جندي سنة إلهي سبحانه وتعالى هجي هلدي سي وأن كلاهي صاحب دكتور محمد عبد حاشي عبد الرحمن محمد عبد حاشي أو وزير كهراء أو كلوميسي يو دكدها ها إلهي سبحانه وتعالى يسقي هلدا والسمر إيمان الله كسي نكنا وحسن أبشر أو هنجري دوقي مقالة عاصمة مقدشو ويدي هراء كدبنا هنجري مر رئيس الوزراء يو كوحجين انتبه إلهي سبحانه وتعالى يسقنا هون حريستو مقالة أنكرة أيو قريودي وحنا فيليا إن لو قاعد دونه لو قاس دونه دلكي إيو ماشي ديجان كيسا هيدا جروي إلهي سبحانه وتعالى لبضوضة هون حريستو هلا دينا السمري إيمان الله كسيو صومالي هردنا إلهي سبحانه وتعالى أنت تقاني أنت أحباب توضحي إلهي سبحانه وتعالى سمر كسي تاسو أميد كويت مد الله بعد shalay qoraal yar baan soo dhigay oo ku saabsan shirkii Dhuusamareeb تعليق ير أما كومنت ير أما كسمعي وحوجا يسوقي قبل واي أرمها ماركتي كده عيي ماشى وصانت المامي إيوه حالة أمة الصومالية دي ضدك الصومالية إيوه قبل الله مدحضة قبل يديد
iyo madaxda federaalkuba ay madaxda u yihiin ummadaasu sida ay xaalkeedu yahay aan xoogaa halkaa ka tilmaamay aad iyo aad ayaa falcelin badan looga soo celiyey oo commenti badan iyo maxaan kuu sheegaa si wanaagsan oo loo soo dhaweeyey iyo meelo badan oo ay gaartay mar dhoweyd fiirinayay 24 saac taqriiban 200,000 oo qof ay ku dhoweyd gaaritaankeed ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ha idin siiyo waan uga mahad celinayaa dadkii maaragtay kelimadda ama la dhacsanaa ama u arkay wax munaasib ah oo la isku baraarujiyo inay tahay innaga waajibkeennu waxa weeye inaan isbaraarujinno khayrka isu sheegno ilaahay subxaanahu wa tacaalana sidaasuuna faray cidnana aynaan uga haybaysan wanaagga iyo khayrka inaynu isfarno wixii xumaanana iska reebno wixii wanaag ummaddan iyo dadkan iyo dalkan u ahna aan isu tilmaanno intii tabarteenna marka halkaas unbay ku biyo shubanaysaa qof gaar ah loolama jeedo dad gaar ah loolama jeedo dadka qaarkiis oo dee ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka soo gaaray sanadahan dambe waxaa ka mid a wax walba in qabiil qofku u fasiro dadka qaarkiis marka arrin qabiil gaar ah ama qof gaar ah la igumana baran manhajkaygana ma aha dariiqadayna ma aha لكن ونصيحة جود الدين نصيحة قلنا لمن لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم دمان oo ay ugu horeeyaan dadkaas madaxda ah waan la jeclahay inay guuleystaan oo ay wanaag gaaraan ama ha ahaadaan heer federaal ama ha ahaadaan heer gobol kasta oo Soomaali ka mid waa gobol ka mid ah jirkayga weeye gobol ka mid ah wadnahayga weeye gobol ka mid ah naftayda jirkayga weeye kasoo bilow meesha ugu hooseysa ilaa meesha ugu dambaysa Iskamboni Kismaayo Soomar soo soco ilaa Xamar ilaa Baydhabo ilaa Gedo ilaa Jowhar oo meelaha aanba yani maarta ku soo barbaaray ka mid ah ama ka hawlgalay ilaa Beledweyne ilaa Dhuusamareeb ilaa Ceelbuur ilaa iyo Gaalkacyo ka timaado dhulkaas haddana hore sii socoto intaba cagtaan mariyay meel aanan cag dhigin kuma jirto intaas aan sheegay ilaa aad ka gaarto Boosaaso iyo Qandala iyo dhinanka kalena Hargeysa iyo Laascaano iyo Burco iyo Boorame aad xuduudda Djibouti halka uga baxdo ama Ethiopia intaasba waa dhulkaygii oo waa cagtaan dhigay oo waa dadkaygii isku si bayna ii xanuujisa wixii dhib ah oo gaara isku si baan ula jeclahay dhammaantood meelaha Soomaalidu ay degan yihiin ama ha noqoto kuwan hadda xorta ah ama ha noqoto kuwa kale oo Kenya iyo Ethiopia ku nool inay horumar gaaraan baan la jeclahay inay adduunka la tartamaan baan la jeclahay inay barwaaqo adduunkana ku noolaadaan aakhirana ilaahay subxaanahu wa tacaala dad muslima weeye jannadiisa uu geliyo dembigoodana uu dhaafo ayaan la jeclahay waayo wixii naftaada aad la jeceshahay ayaa la rabaa walaalkaa inaad la jeclaato marka taasna sidaa waa in loo ogaado oo dadka hadda badankood baa og yihiin kolkolka qaarkood waxaad iska arkaysaa qof habow ah oo meelaha ku soo dhacay يعني مركا تراهدو مانتا واسبتي وحو مقليا أحد مركا تراهدو مقدشة مركا تراهدانا دكتي سوى حاكو دعايا كسمايو مركا تراهدو وحن ومدونا سوى عدان أيو مقليا أما عقار أما قدود مركا كواسنا وحن ليه راليقا هذا إن شاء الله تعالى وحن جعل انت مركا كسو قد باللبضاس قضب هاد علينتا إيا تعزيدا أفر قضبنا الشيخ أفر قضب بان جعلهاي كلن كان كوبان qodobka koowaad waxa weeye dadka qaarkiis waxay leeyihiin wadaado waxun baa sheegaysaan ficil baa la rabaa in lagu daro oo hadda shalay markaan ka hadlay dadkeennii waa yani noloshooda aan ka hadlay inay maaragtay in badan dayac ku nool yihiin qaxooti ku nool yihiin 3 milyan qaxooti ku nool yihiin intaasna inuu 30 sano iyo ka badan aynu ku jirno baa dadka qaarkiis dabcan waa qiiroonayaan waa dhalaalayaan waxay leeyihiin hadiyamaana dhaqaajisaan hadda anigu waxa weeye haddii aan ahay qof walba inta uu yaqaano inuu ummadda gaarsiiyo baa horta waajibkiisu yahay gaar ahaan dadka ducaadda ah ama wadaadada ah ama
كتابك إلهي سنة النبي عليه السلام يا إسلامك وحكا قرنايا وحا واجب كوا ومدين يكون براروجيان نولشود أدونك إن نولشود آخره سيدا لبدا بكل يباني لهايين وانا مدى هذا أنا وحبضا ضدك قاركيسي أورانا مركان سياسة كهالليو أما مامل كهالليو أما دقالها كهالليو ورولات كقاركود حسنين محاق لي وايو ولا يابا يا وحين مقلي جري مقلي جري منو آخر كهاللو قيامها كهاللو نارتا كهاللو جنة كهاللو غورك كهاللو أرمها كهاللو فقهك تكلمت اللي ويديو ويا هذا القرآن الكريم كأهنا وحكو جرى ماملكي وحكو جرى سياستي وحكو جرى باريه وحكو جرى بدي وحكو جرى حوله وحكو جرى الدنيا سيدي لو مامولون لها دقاليه سيدي لو مامول لها سيدي لو مارين لها ومد سيدي لو هقامين لها سيدي ميل ونكسن لو دجين لها سيدي لوغا ساري لها فخرقة سيدي لوغا ساري لها دباتة سيدي لوغا ساري لها نبتقلية لآنتا وحاصلنا هذا القرآن كيكون ليهين إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريم كابو كسو دجي هدانا المركة كهذلين oo aanan waxa bidaamin oo waliba loo baahan yahay maanta oo arinteedu ay taagan tahay maxaan ka hadlaa ii sheeg aan kala hadlaa wax badan aan idin kala hadlayaa meelaha arrimaha sheegaysaan oo ama fiqiga ku saabsan ama salaada saa u tukan lahayd ama soonka saa u culimo badan ku sheegays laakiin adduunyadaada laftigeeda sida islaam ugu maamuli lahayd oo diintaada ugu maamulan lahayd oo noloshaada nolol maalmeedkaagii aad u hagaajin lahayd islaamku u waafajin lahayd waa inta dad yar ay ka hadlaan marka mar walba baahida hadalka loo qabo ayuu ku munaasib yahay laga hadlo marka qaarkood waxay oranayaan maad deena dhaqaajisaan nagu hogaamisaan warooyaan hoodinina waana inuu yahay oo dalkeena qabiil baa wax badan yani dadka saameeyay maskaxdiisa sida aan sheegay marka haddii aad diyaar tihiin dad idin hogaamiye ma weynaysaan علماء إذن هجامي سموين إنسان أقوياء إذن هجامي موين إنسان لكن أمة إلهي ما بدلوا هدان يدو يسبدلين هرتوا إنان كارنا وإن لا ينجا أركا هدين ونهجعب كالصوماليين إننا قبيالات وحكو قيمينين إننا قبيالات وحكو دورنين إننا قبيالات كليين أصعبتم هين إننا قارنو هير قفك مركو وحكو شيء مصلحة إيضانت كجرت إناد كلا هذا الشو oo aad ku qiimayso aadan ku qiimayn horta yuuya adigu hadaad tahay reer hebel waxa ay sheegay hadaad xaqba ku gali maaye markaas maxaad ka faa'iideysanaysaa hadii xaq lagu sheegay hadaa xaq lagu sheegay inna wajadna aabaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun taasaad ku jirtaa adigu waa qurayshtii iyo nabiyada kuwii ka dhiga xiran jiray oo oran jiray anagu waalidiinta iyo aabayaashay awoyaashay sida ku socdeen baan ku soconay meel kale uma soconno waxa weeye inaga wax dhalaalintan iyo wacyigelintan iyo hadalkan aan in ku dhaxtuurayo idin kama diinayo qaar baa igu caynaya qaar baa igu maagaya qaar baa oranaya maxaa geliyay waan ogahay makka zuulayo maxaa dhacay anigu ina adiga ku raali geliyo hadalkan uma oranayo inuu hebel ka xumaadana uma oranayo ilaahay dartiis baan u oranaya iyo anigu maalinta qiyaamo inaan ku nabad galo maalinta qiyaamo anigu in markii la soo taago la yiraahdo ummadan Soomaaliyeed warkeedu waa isbedeli waayay xaalkeedu wax ma loo sheegay ina iraahdo ilaahu anigu waan sheegay ilaahu waa u tilmaam qabyaalad inaan wax lagu qiimeyn waa u sheegay dalkooda inay dhistaan waa u sheegay ma garanaysaa noloshooda inay la soo bixi karaan oo dhulkoodu barwaaqo yahay cid inay baryaan aanay u baahnayn waan u sheegay hoggaanka inay u dhiibtaan oo qofka ugu wanaagsan oo kartida leh ay ku doortaan waa u sheegay haddii qabiil raacaan ama laaluush raacaan anigu kama ihi waajibkuma sabab kuma lihi dembina kuma lihi marka hadalka waxaan ugu celcelinayo oo aan u sheegay horta ma aha hebelna ku xumay hebelna ku raali geli aniga arrinkaas ima khuseeyo waxa khuseeyo waxa weeye inaan anigu ku nabad galo maxaa dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dadka garanaya kitaabka ilaahay garanaya wuxuu ka qaaday daar ballan ah وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لتبيننه للناس وإن أعضيسان أو أيضا قرين أنا مركب حيسان لتبيننه للناس إن أعضيسان ذاتك إن تصيسان إن تكبر رجسان وأرين كاسو كتابك إنه كجر إلهي مسلم باتهين عدالته كتابك إن الله يأمر بالعدل سياسة عدالة أي وحلقوا أمره هل كان يكون جرتا إن خير من استأجرت القوي الأمين وارقف أمانة له
oo karti leh oo aqoon leh in wax lagu doorto aan qabiil lagu dooran ama 4.5 lagu dooran ama hebel buu yahay lagu dooran ama laaluush buu isiye lagu dooran kitaabka ilaahay bay ku jirtaa xujadeedan kugu oogaya ama ra'iis ama madaxweyne ahaw ama wasiir ahaw ama xildhibaan ahaw ama qof shacab ahaw ama odayaasha madax oo beelaha madax u ahaw oo qabiil madax u ah يوم القيامة خصمك بانه خصمك قفك كوغو دودايو حجده كوغو اوغيا وايو اديغا سيده انيغا واجبك عدينتو اي سارنتahay با اديغنا واجبك هداد جوجتو بوسكي لا فولين لها اي كو سارنتahay هداد مدحوينه tahay كلمه ان شيغينو او كتابك الهي كو قران ايا كو سارن انا فوليسو هداد وزير tahay way ku saarantahay هداد مسؤول kale tahay way ku saarantahay inaad fuliso أنا وحى صار إنه عضيو هذا عليك فلنت قعدت أبوذه يري أنيقا هذا قاتم السورية ديتسون يا مركوا إنا كل قنتها تاسنا وحوي ولا لها له ما هذا الكلية بايسان هذا الكلية معها وإنا دلكن أهيلنه أين قبيل أهيلن ولا ليه وإنا دنتن أهيلنه أين دن قف كله أهيلن وإنانا أنيقو قف عن وحبا إيقا خصين أو أنيقا عن نرشايدي مانتا عنتدايدي ميلكو أوغي أو قاديد كان راعي لها ميلكو أوغي أو كورنتادا شدان لها ميلكو أوغي أو إسكول كان عروت جيسان لها ميلكو أوغي أو إسبتال كان إسكول داوين لها ميلكو أوغي وما صعبتو ميكرو ولا هو صعبتو ميكرو يعني حوش يقول ماهي وحقولنا صحيح ماهي وما صعبتو ميكرو وما هيسي كرو وما قبي كرو ما قرأت مركز إننا ذلك نوهينونا وإننا إسكوا وافقنا ولا ليا وحن كشقينا وعي قلنا وحوي دنتنا إن إسكوا وافقنا ما هاي نود دنا ما سيدنا باي نود دنا صدق سنة إن إنسان كجري أفرد سنة دن إنه معها وحد دن إنه إنه ضد جره نقولنا ضلب إلهي النسي خيرات بإلهي النسي نعم إلهي النسي مسلم بإلهي إن قد جاي درحوما إنان كنا لانو أن كجرنو يا maaha arin gar ah maaha taas marka hadeenu isku waafaqno way hagaagayaan dadna way soo baxayaan tusaale waxa ka danteena si aynu isugu waafaqno oo qofkii karti iyo aqoon u leh u geysano meesha aynu rabno aynu geysano horta xornimadeena aaw xormana anaga dad shacab Soomaaliyeed dadna xormana may xormanihin baa qabaan حرمنا ما يحرمني اختيار ما لنا هي يقان ما يمليهن عدا روا انيغو ما دوران كرا ما صاري كرو هدا waxa laga hadlaya 4 sano markii la joogay 4 sano ka horeysana la joogay ba hadda waxa laga hadlaya sidee wax ku doorana oo 4 sano maxaa la sameeyay hadda mesela hadda 720kii waxay ahayd ma goortii doorashada la keenay goormeed baarlamaanka la keenay ma qof iyo cod baan ka dhignaa ma mid kale dadban baan ka dhignaa ma nooc kale aan ka dhignaa goorma la isweydiina goorma 720kii bishan hadda July sooma مثلا 720kii bishii July ba 720kii bishii July waaya maamulka hadda jira dawladda hadda jirta waqtigeedu dhamaanayo goorma la doortay 2016 2017 8 9 20 baan ku jirnaa ma 20 baa la isweydiinaa marka waayahay ka hor dawladdii ka horeysay ee madaxweyne Xasan Sheekh 16 gadaal soo 15 gadaal soo 14 gadaal soo 13 haye iyadana maxaa la qabanay ma laga shaqeyn kari waayay dadka Soomaaliyeed war wax kale yaan loo qaban dadka Soomaaliyeed hal la siiyo اختياركي iyo xornimadii iyo awoodii iyo madax banaanidii ay u lahaayeen oo Ilaahay baa siiyay cid ka qaadi kartaa ma jirto xornimada Ilaahay baa siiyay qalbiga halkan ku jira cid ma adoonsan karto adduunka quwadiisa oo dhan haday isu timaado qalbiga halkan ku jira xubinta yarta ay halkan ku jirta cid adoonsan kartaa ma jirto rabitaankeeda cid adoonsan kartaa ma jirto إلهي بس بني آدم اختيار كاسا أنك نلك قاضي حرني ماذا يعني راهو نكانوا عني ماذا حين نقول ما يعود كينا مصينا كنا واسينا يا سي حرة أو عدالة أو أن مسوق لهين أو أن العجبس لهين
horta ummadaha meesha ay ka dhismayaan halkaasay ka bilaabataa maxaa marka hadda la sugayaa hadda saniri 4 sano oo xasan sheekh way dhamaatay 4 sano oo shariif sheekh axmed way dhamaatay 4 sano oo maxamed cabdullaahi farmaajana way dhamaatay welina hadda dhuusan mareeb laga shirayaa bal aan ka nimaadno isu nimaadno oo aan bal siday noqonayso oo maxay noqon doontaa hadda iyadoo doorashadii ay ka dhiman tahay muddo xileedkii qoladan hadda ay dhammaanayso bil kadib maxay yahay waxaan filan karaa maxay tahay waxaan filan karaa waxa weeye walaalo wixii hore wax ka badan kuuma hayno maxaa dhacay laymaba siinba dee lagamaba shaqayn in lay siiyo aniga ikhtiyaarkaygii oo kaarkaygii la ii sameeyo تسجيلات كيلا يسميه مواطنين تيدي يسجلوا قد عدالة أو محكمة أو قضاء الله سميه أو درشوين كمل ولا صفي عنهم مراقبية دتك دي بدك كيمان لها أو مراقبين لها لا سميه يا ميله اللي قبل لها لا أجاجيو وحكم لو تلقى له بلان يقرش له دجيو سدت كان صوماليات أي وياشان أوده إلى هيسي أودي إلى هيسي بعد كان صوماليات لقى قاضي سيدي وحوي كران مركب ninkii shilin haysta oo marka meel kale ka soo qaata de waxa kursi ha ku raadsado weeye waa sidaynu ahaan jirnay si ka badan baa ka duwan baa la hayaa ilaa wax kale oo macquul ah oo muuqadanaya hadda ma jiraan marka waaba arki doonaa waaba loo joogaa hadii wax kale imanayaan laakiin muddadiiba intan ah maxaa iman kara adaan ku weydiiyay maxaa iman kara marka hadal waa deysay weeye sidaas darteed tusaale idinsiina walaalayaalo tusaale idinsiina waxyaalahan ka bartay dalkan Turkiga oo maalin dhow aan idin iray madaxweynaha dalkan hadda Erdogan uu soo harjaday 1976 buu galay siyaasad isagoo dhalinyaro ah kadibna wuxuu isu sharaxay 10 sano kadib wuxuu isu sharaxay dawladda hoose waa ku guuleysan waayay wuxuu isu sharaxay baarlamaanka guud ee dalka xildhibaannimo kuma guuleysan wuxuu isu sharaxay mar labaad codkaana dadku bixinayaan xildhibaan kuma guuleysan 3 jeer markii halka ku soo wuxuu isu sharaxay 15 sano kadib duqa magaalada Istanbul waa ku guuleystay markuu ku guuleystay duqa magaalada Istanbul fiiri shacabka iyaga cid ay rabaan dooranaya Soomaa anigu barnaamijkaana wataa meesha ma jirto haddaanay jirin maxay dadku wax ku qiimeeyaan wuu ku guuleystay magaaladiina wuu bedelay sidaan hore idinkaga sheekeeyay biyo la'aan bay ahayd biyo ka keenay koronto la'aan bay koronto ku sameeyay gaadiid la'aan bay gaadiid buu sameeyay dadweyne caafimaad la'aan caafimaadku waa daciif waa caafimaad buu sameeyay wax la taaban karo buu sameeyay 2 sano 3 sano gudahood dadkii way barteen way arkeen indhay leeyihiin dhagay wax ku maqlaanna waa leeyihiin aqli ilaahayna waa siiyay isagoo shaqadiisii wata baa la xiray 94 shaqada 97 baa xabsi lagu soo oogay 98 waa la xiray 4 bilood buu xabsi liqay gabay yar uu meel ka tiriyay يعني laga dhadhansaday diin laga dhadhansaday ayaa lagu xiray soo noqday xabsi markuu soo baxay 2000 wuxuu asaasay xisbi la yiraahdo xisbigan hadda talada ay xisbiga cadaaladda ayuu asaasay 2002 waa ummaddu markay nooshahay doorasho leedahay fiiri ummaddu iyada dadka ayan rabin ciqaabta oo banaanka u tuurta aan waxba u qabanayn dadka wax u qabanaya ay wax qabad ka aragtana keensan karta Soomaaliduna waa la mid hadii la siiyo xurriyadda iyo xaqqa hadii la siiyo laakiin looma ogola dad baan u ogolayn aan arkay dantooda ka arkay mugdiga ku jira 2001 buu asaasay 2002 doorasho la galay 550 kursi oo baarlamaanka ah shacabka Turkigu wuxuu u siiyay Erdogan xisbigiisa oo hadda ninkan xisbiga ka soo baxaya oo xisbigan hal sano jira ah wuxuu siiyay 363 kursi buu siiyay yaa awoodisi shacabka maxaa jira nidaam baa jira ay wax ku dooran karaan oo xor ah
oo doorashadaas loo arno waa doorasho cadaalad ah oo adduunku u daawanayo oo la isla qirayo inay qof walba codkiisii meeshii loo waday uu ku dhacayo la muraqabaynayo maaha musuq maasuq iyo lacag bixiyo oo ku shubtay iyo sida dadka qaarkood xataa ay doorashooyinka Afrika iyo meelo qaarkood laga sameeyay inaga la leeyahay rabo in laga dhigo oo guuleystay subaxii uu ku guuleystay 2002 shan xisbi oo dalka ugu waaweynaa oo waligood qandaraas iskaga haysan jiray oo ummadana wax weyn aanu qaban jirin oo iyagu siyaasiyiin isku magacaaba maaragtay elite oo cilmaaniyiin oo adduunka kada ah shantii xisbi ugu waaweynaa madaxdoodii subaxii Erdogan ku guuleystay doorashada 2002 shantooduba subaxdii dambe way iscasileen maxaa dhacay waxba way keeni kari waayeen shacabkii Turkiguna wuu ka hiiliyay oo wuxuu yiri waxba nooma haysaan terrorigtiina xagga iga dhiga marka haddii aanay ahayn 12 sano walaalayaalow 12 sano dadkan maxaa codkooda loo siin waayay si cadaalad ah oo maxkamado iyo garsoorayaal ilaalinayaan codadka oo nidaamka adduunku uu u sameeyo codka in loo hubin waay oo loogu sameyn waay ma technology baa loo sameyn waay ma lama sameyn kari waay ma IT engineers baa la waayay codka nidaam lagu sameeyo ma lama waayin ma garsoorayaal cadaalada la waayo ilaaliya sanaadiiqda iyo qofka codaynaya iyo in laga hubiyo inuu codkii qofkaas si fiican u bixinayo ma lama waayin laakiin wixii aan la rabin lama helo wixii aan la rabin lama gaaro lamana helo lagumana hagaago waa in marka lagu meeraystaa wax kale lagu meeraystaa anu marka waxaan leeyahay ummadan waxa ay isbedelkeedu ka bilaaban karaa horta in xaqii ay lahayd la siiyo hal kale aan idin sheegaa oo diin ah walaalayaal dhageysta ilaahay idinku dhaariyo dhageysta bani aadamka ilaahay xor buu u abuuray ikhtiyaar buu siiyey makhluuqaadka kale oo dhan ma siin xornimada ikhtiyaarka ah oo ilaahay siiyey bani aadamka حتى إلهي وحانو اللي أبورتي أو إساقو سميي بني آدمك أنيغا خصب إيقو عابد حتى مصير إلهي اسم مصير مكوامل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي بل هذا أوفير سؤالي أرنقا اللي أبورتي بني آدم كان حرية وحؤسي إنو الرمية إيا إنان الرمي إنو الرمية إلهي إيا إنان الرمين أيوب إلهي اختيار أسي إسلام بو نقون كرا إسلام كي بو ديدي كرا وما إسلام يواني نقون كرا حسابتي سؤال كان ما وحو يرهد وان كلا حسابتما يا آخره هذا لكن أدون كان اختيار بو ليه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اختيار بو بالليه لا إكراه في الدين ورأليه أبورتي أيا كخس بوايي أنيقا كليقي خصب يقول عابد ugu yeeray kaliya war aniga icaabud kaliya ugu yeeray laakiin ikhtiyaar siiyay xaqu ka iman kara bani aadamka oranaya ikhtiyaar ma lahan kartiin oo ana idin ka qaaday ikhtiyaarka qofka inaad tiraahdaan kaasan madaxweyne ka dhiganaya kaasan kaba dhiganaa xageed laga keenay waxaas soo dulmi aadan sameeyay waay marka xaq ilaahay ba naftiisa aanu sin bay isasiinayaan ilaahay amax haadacay sababtu maxay tahay dee waxa weeye waxay og yihiin haddii ikhtiyaarkaas uu helo in intooda badani ayan jaani saaxadda ka heleen shantii xisbiyo aan idiin sheegay oo Turkiga Erdogan markii ku guuleystay doorashada iscasilay dhammaantood subaxaasay ka lugeynayaan dalka ka huleelayaan oo isaga tagayaan maxaa dhacay ummaddu way aragtay waxay qaban karaan iyo waxay yihiin iyo waxay taraan iyo waxay galaan iyo waxay gudaan waa la arkay taas waa halkaa midda saddexaad oo aan jeclahay ama qodobka saddexaad aan rabay waxa weeye dad baa intay soo istaagaan ummadina iyagoon ikhtiyaar siin doorasho siin iyaga la dooran adduunka waxay leeyihiin oo isbedel baan samaynay haye wax baan hormarinay haye horumar baan gaarnay haye anigu dawladda intii aan joogay intaasoo horumaraan sameeyey haye waaya walaalayaalow horta horumarka ummad ama dal
أما ضد محل قياسا ما أرين قفكي الربع إسكش شيئا كرابة ما هذا أنت تقول أنا إسطنبول عاصمة أنت تقول إسكش صورة إنا إرادة هرمر بسمي 100 ما يشيء مسكش شيئا كرا ما سعف كان كش شيئا كرا وحنا كرا هرمر كاسا سمي واحد بروفي واحد دليل عن الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بو إلهي سبحانه وتعالى النبري قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هذا رن شيء إنسان برهان تكن يعني حانك وضع أدونكو وحليه عبر هي ميزان لو عبره dalkaasu horumar ma sameeyay ma sameeyay madaxweynahaasu ama maamulkaasu horumar ma sameeyay ma sameeyay adduunku cabir buu leeyahay arintu iska sheegasho maaha yazcumuuna waxay sheeganayaan maaha ya maxaa lagu cabiraa maxaa lagu garan karaa تضبط أريمودان كسو قاضا تضبط قضب بالو عبرة عبر ربنا نجرا لكن هذا مركي لفيريو يو إنكا تذكر دولته سي أقيب سيين أما وقد ديوان كشيين دولته هرمري أو دقالة وين له أو هرمر له أو أود له يعني دقالة دولته كسو حيقا أو كهوسية إيجا أو دبهيك سناية كوا آد صبال أو آد أوليته أو فقير أو دول كيال kuwa xoogaa yar kuwa saboolka ka soo kacsan afartaas loo qaybiyaa maxaa afarta loogu qaybiyay awoodaas waxay ku joogaan UN-ka waxay ku joogaan World Bank waxay ku joogaan IMF-ta waxay ku joogaan hay'adaha adduunka waxay ku joogaan adduunku sida uu u qiimeeyo ayaa 200 dal iyo ka badan adduunka wuxuu leeyahay cabir wuxuu leeyahay miisaan la saaro dawladaha marka intay miisaankeedaas goyso بالغو قرية ما يكون هو صبولك هوس خدك كجرة كون هو كوا ما يحوى صبولك وحير كسوكعي كوا سمية وكوا آتك هرمري كوا سمية كوا هرمري بهيك سنيان أما هذا يسبدل كجران أيا الله قياسا تطبق طبعا كسوق هذا ضد كذا قال يان كي يقول يان كإنه كل يوم واتقانا لكن وحصوص إن ضدك جود أهان دقي سري أن أوصف ضديه وبسليه تضبط قضبة اللي يدينا قفكي يراهذا دلبان هرمري أنا كما شاكينا يو ماركتي تباكاي هالكان لغا ديسي يو محان كو شاكاي ماشا أنا ماركتي ما أنت بريس لغو قيبي يو I'm not talking about that وحا كما الله تضبط قضب أيا لغو قيمي قضب ككواد وحوي ودنك وحصو صار كيس جود محوية محاد صو صارتا dhaqaalahaaga wax soo saar ama waxa afka qalaad ay u yaqaanaan marka la soo gaabiyo GDP-ga waxa lagu qiyaaso wadanka qiyaas baa laga qaadaa GDP-giisu waa imisa gross domestic production yani marka la isu geeyo wax soo saarkiisa wadankaas ya beerihiisa dhulkiisa adduunkiisa dadkooda waxay shaqeeyeen waxa marka la isu geeyo maxay tahay GDP-giisu muxuu yahay value-gaas muxuu qiimo leeyahay ya GDP-giis waa imisa marka maraykan wuxuu oranayaa ana adduunka ugu weyn maxaa dhacay dee anigu waxaan soo saaraa 25 trilyan oo dollar waaye aniga GDP-ga Kenya baa hada soo oranayaa Kenya adigu xagga hoose iska soo tag 150 bilyan weeye wax soo saarkaagu ma garanaysaa marka wadan waxa lagu qiyaasaa GDP-ga waa lagu qiyaasaa kow waxa kale oo lagu gartaa wadankaas oo horumar sameeyay mid ka farcama oo per income qofka dhexdhexaadka muwaadinka dakhligiisu bishii sanadkii muxuu yahay sanadkii maxaa soo gala muwaadinka Soomaaliga ee dhexdhexaadka ya maxaa soo gala sanadkii maxaa soo gala adduunku qiyaasta uu dajiyay waxa weeye $1 wixii ka yar oo ka hooseeya 1 iyo waliba 35 wixii ka hooseeya waxa loo yaqaan low income aad ka ku hooseeya poverty ku jira yani
dakhligoodu aad u yar yahay haddii maalinkii uu ka yar yahay $1.90 waxaa la yiraahdaa waliba line of poverty-ga uu ka sii hooseeyaa yacni khadkii saboolnimada ayuu ka sii hooseeyaa baa la yiraahdaa inagu hadda waxaan ku jirnaa dowlado badan oo 1.9 ka dadkoodu average-koodu aanu heli karin baan ku jirnaa idan marka waxaad ku jirtaa qiyaas meesha laga qaadanayo hakow labo saddex halkaas labadaas aan sheegnay ayaa sanad walba isbedel baa ku imaan kara haddii la shaqeeyo isbedela ku imaanaya haddii dhaqdhaqaaq la sameeyo isbedela imanaya haddii horumar la sameeyo isbedela imanaya isbedelka maxaa lagu gartaa waxaa la yiraahdaa korriimada dhaqaale percentage-keeda sanad walba inta uu qofku samaynayo dowladdu samaynayso waxaa loona sanadkan 2% bay samaysay waddankaasu dhaqaale korriimo growth ama economic growth waxa afka ingiriisiga ku yidhaahdo wuxuu kor u kacay korriimo 2%, 3%, 4%. wadamada aadka u dheereeya oo shaqada badan qabtay oo isbedelaya 6%, 7% bay gaaraan wadamada fast growing hadda maalintii dhaweyd markaan ka sheekeynaynay Malaysia aan ka sheekeynayay oo Dr. Mahathir aan tusaale u soo qaadanaynay lama helin baa la yiri 20 sano prime ministerka aan mugtahay dhowr iyo 10 sano wadan korriimadiisa dhaqaale percentage-keedu 8% ay gaarto oo waliba 10 sano oo kaamil ah sida u xiriirsanaato adduunka way ku yarayd baa leeyahay that's why they say waxa dhacay saasa loo yiri isbedel buu sameeyay horumar buu sameeyay dalkan wayna muuqanaysaa marka hadda marka sanadkii hore iyo sanadkan iyo sanadka dambe iyo 10 sano meeshaadi taagan tahay economic growth-kaaga meeshaadi taagan yahay oo dakhligii muwaadinku meeshii taagan yahay oo waddanka wax soo saarkiisii waxba aanay shaqayn oo wareegin makiinad wareegta ma jirto xagga badda iyo xagga xoolaha iyo xagga beeraha iyo xagga dhismaha wax wareegay oo dhaqaaqay ma jiraan meeshii baa taagan tahay sideed ii oran kartaa isbedel iyo horumar baa sameeyay waa iska idcaa hadal la sheegto un buu noqonayaa hadal la sheegtana waa hadal malagiis kale afar waxaa lagu ogaadaa oo lagu qiyaasaa shaqa abuur iyo dadku say u shaqeeyaan for example tusaale idin soo qaada masalan tusaale hadda China maxay hadda adduunka goormay China adduunku soo dhawaan jirtay China walaalayaal goormay adduunku soo dhawaan jirtay goormay Mareykan iyo hortiisa iman jirtay dhaqaale ahaan 30 sano ka hor 40 sano ka hor goormay iman jirtay ma iman jireen China hadda waxaa lagu qiyaasaa sanad walba 50 milyan dad ka badan ayaa laga soo qaada waa muwaadiniintii waa dakhligan kula moogta adduunka lagu 50 milyan ka badan ayaa waxaa laga soo qaadaa faqiirnimo iyo saboolnimo oo waxaa lagu soo daraa middle class iyo dadka wax heli kara dakhligoodu siyaadiyay balus 50 milyan sanad walba dadkaygii faqiirka ah baan hoos ka soo qaadaya shalay waxaan halkan ku soo qoray 6 madaxweyne federaal iyo 5 gobol ha isweydiiyaan imisa 3 milyan ilaa iyo 91kii ayay UN-ku waxay nagu haysaa Soomaalida 3 milyan ba waxay yihiin qaxooti 3 milyan ma dhinmaan miya ma yaraadaan miya ma koraan miya saboolnimo kama baxaan miya 3 milyan waa qaxootiga 3 milyan oo kaleeto baa gudaha ku baaba'san oo cusbitaal iyo koronto iyo biyo iyo jidiinka wuxuu mariyo aan heli karin oo kale jira oo aan qaxooti ahayn 3 milyan oo kalena waa shaqo la'aan oo waa dhalinyaro oo baday galayaan 9 milyan baa halka ku tagtay xagee marka hawshu iska qaban kari lahaday seesa iyo oranaysa 10 sano isbedel baa jiray wax weyn baa jiray oo la sameynayay ma inkirayno shaqo maalmeed in la qabto ma inkirayno waxyaalo yar in la sameeyo waxaanu ka hadlaynaa ma aha yaa guri hebelkaana la xafiiskaana la soo sawiray kuraastaana la soo sawiray wallahi xafiisku qurux badana waxa soo hadal ma waxaan ka hadlaynaa walaalayaal aan isla fahamno waxaan ka hadlayno annaga kama hadlayno ninna ma oranayno xaqiisa ma baqsinayno laakiin waxaas uma taanu rabnay miya taanu doonayna miya taanu meesha dadkan u keenay miya tay u yimaadeen miya annagu ma keenine annagu ma keenine waxay u yimaadeen matana waxay mas'uulka ka yihiin matana maaha
waxay mas'uulka ka yihiin waxa weeye waddankan growthkiisa korriimadiisa dhaqaale waxbaan ka bedelay maxaa dhacay warshadaa dhaqaaqay beeraa dhaqaaqay bad baa dhaqaaqday xoolaa dhaqaaqay adduun baa dhaqaaqay dadkii waa shaqeeyeen lacag baa soo baxday korriimo dhaqaalaa timi GDP-gaygii kor buu aaday adduunka iiga markhaati kacaya maba u baahnay aniga in la ii heeso ama 4 wiil iyo 4 gabdhood intaan soo kaxayo tiyaatarka fuulaan idhaahdo ii heesa it's not going I don't need maba u baahnayba maxaa uga baahanay waa lagu qiyaasaa employment shaqadu abuur tusaale Brazil dalka la yiraahdo hadda soo ma maqashaan in lagu soo daro dalalka soo kacay dhaqaale ahaan dalalka sare higsanaya maxaa dhacay sababta what's the reason maxaa dhacay 2003 markii uu madaxweynaha ka noqday ninkii la oran jiray Lula da Silva yani nin wuxuu ka soo baxay madaxweyne qoys faqiir ah oo sida Mahathir sida Erdogan sida kaas oo kale marka qof weeye ummadaha qofka ka soo baxa oo isbedel sameeya haddaad rabtaan inaad ku dayataan walaalayaal haddaad rabtaan inaad ku dayataan madaxay haddaad rabtaan inaad ku dayataan adduunka fiiriya hareerihiina eega ninkaasu marka dadkii fuqarada ahaa uu ka soo qaaday meesha awliyadiisa priority-giisa koowaad wuxuu ka dhigay dadkan faqiirka ah siduu kor ugu soo qaadi lahaa quutal yoomka say u heli lahaayeen waxaa la yidhaahdaa employment rate-ku wuxuu marayay يعني 1.9 وحو مري سديد بقول كيبا مري بقول كيبا سديد ميلها ugu sareysa way shaqo la'aan baahsan dadkan danyarta ah oo shaqo maalmeedka aan heli karin shaqo yar yar ay u baahan yihiin ka shaqeeyaan oo quudkoodana ka helaan sharaftoodana ku dhowrtaan cidna aan baryin hay'adina aan oran ana maaragtay xoogaa bariisa iyo xoogaa qamadi u daadinaya waa ceeb way dad muslina oo sharaf leh oo khayraad haysta oo adduun haysta oo wabiye haysta oo beer haysta oo macaadin haysta oo badaha ugu dhaadheer haysta waa ceeb inay tiraahdo hay'ad NGO ah oo ka timi America ama Norway ka timi ama Belgium ka timi inay tiraahdo qamadi baan u qiimina qallalan oo caloosha oo maaragtay dysentery biyaha la sii daayo boqolkiiba 8 ba shaqo la'aanaha hoos u soo dhigay boqolkiiba 2 bay gaartay taramkii soo horreeyay taram baa ku soo noqon doonaa 2010 hoos biyaad wadanku soo kacay korriimada dhaqaale 1.9 bay joogtay waa meeshaan la GDP-ga baa kordhaya dhaqaalihi baa kordhaya wadamada meesha laga qiyaaso maxaa loo yiri Brazil is emerging waxa weeye way wareegaysaa way taxawushay yani ninkaas markuu uu yimaaday ayaana madaxweynahaas markuu uu yimid ayuuna bilaabay isbedelka weyn uu bilaabay waa wax jaamacadaha lagu bartaa kutub baa laga qoray adduunka laga qoray adduunku waa isu wada jeedaa adiga u malaynin meel jasiirad gaar ah kaliya Soomaaliya ku nooshahay adduunkaanaad ku nooshahay Mareykan wixii ka dhaca Japan wixii ka dhaca China wixii ka dhaca qofkii wax akhriya oo wax dhageysta oo wax fiiriya uu arka adeer books kutuba meel walba taala library-yada taala journal-yada ku qoran tahay magazine-yada ku qoran tahay internet-yada ku qoran tahay orod wax fiiriyo eeg adduunka soo ani hada soo taagnaani waxba lama samayn karo maxaa dhacay qiyaad ba taala waxba lama roogi karo maxaa dhacay lugta la igu dhagan yahay waxba lama dhaqaaqi karo maxaa dhacay waxba ma dhaqaajin karno duruufta nagu dhagan maxaa dhacay waxba ma dhaqaajin karo dadkan aan ii ogolayn inaan dhaqaaqo waxa soo dhamay waxa waaye وهذا العلوي بالله يرحمه هذا العلوي الله يرحمه هذا العلوي ملوي بالله يرحمه كريمدادي waxay gaartay boqolkiiba 5 labadii sano ugu horeysay kadibna waxay gaartay boqolkiiba 7.5 bay Brazil gaartay koriimadaadii ninkaas intuu joogay isbedel baa wadanka marka ku dhacaya waa 3 sano gudahood marka wadamada 29 milyan oo dad sabool aha oo dakhligoodu dhulka yaalay ayaa kor loo soo qaaday baa la yiri oo middle class yani dhexdhexaadka nolosha dhexdhexaadka la keenay nolosha dhexdhexaadka la keenay oo dhaqaalaha Brazil China maxaan ku yiri 50 milyan buu sanadkiiba soo qaaday walidaalika ninkan hadda si bank joog ninkan hadda jooga waxay siiyeen Finawito ya weligaaba iska joog teramkii dhamaanayay 4 sano ama 5 sano
adeerow kuguma xadideyno war haddaad doonaysaan ummadaanu inay idin deysato oo idinkoon laablaab iyo luuqluuq iyo god hostis iyo laaluush bixin iyo wax xun la daba marin haddaad wax qabato iyadaa ku dooranaysa maad wadada toosan marti maya xoogaa boorsa lacag lagu soo qaato ba Soomaaliya wax lagaga noqdaa bis يعني waxa weeye ummad baabaaday oo iyada nolosheeda iyo shaqadeeda iyo waxbarashadeeda iyo caafimaadkeeda iyo wax lagu ma noqdo wax lagu ma noqdo maxaa wax lagu noqdaa boorsa lacag wax lagu noqdaa oo boorsada lacag maala shaqaystay ma maadan shaqaysane meelahaas laga soo qaata yani maalgashi waa qodobka shanaad oo lagu cabiro koo waxaan waa GDP laba waa beer income-ka qofka صدح وحوي economic growth ama wadanku sida uu korrimi sanad walba la cabirayo u sameeyo afar waxa weeye shaqo abuurka shan waxa weeye cabirka lagu sameeyo wadankan muxuu dhoofiyaa maxaa lacag ajnabi ah lagu maalgashada oo soo gala waa cabir kale to adduunka lagu cabiro wadamada marka ay isbedelayaan ama ay horumar sameeyaan ilaahay baan idinku dhaariyay nimankiinan hadda madaxda waliba hadalku ha ku socdo toos ya federaal iyo muxuu ahaa goboleed dalkaygii hooyo ilaahay wuxuu ku manaystay saddex khayraad oo adduunka dad badan aan la isugu darin la isuguma daro dawladaha la isuguma daro ilaahay Soomaaliya isugu daray bad Afrika ugu dheer 3,300 kilomitir saddex badood oo adduunka ku taala Indian Ocean iyo Red Sea Gulf of Aden iyo Arab Sea wuxuu ugu daray dhul beereed 82 milyan oo hektar inta bugaagta ku qoran ka laga yaabo inay ka badan tahay oo qoodin karta 150 milyan oo ruux qoodin karta way joogan madaxdii beeraha iyo injineeradii iyo professoradeedii haddaan been sheegay hal laga qabto waxaan buu malana tirada inaan intaas ka soo yaray way wax badan ka akhri statisticii hore oo dawladii hore 1985 ka soo saartana waa haya kuwa adduunku qorana waa hayna marka inta ugu yar qiyaasta ugu yar waa 82 milyan oo hektar waaye oo haddii 7 ruux مثلا lagu dhifto halkii hektar la yiraahdo si fiican ha u quudiyo sanad walba yani waxa weeye average 150 milyan oo ruux Soomaalina iyadoo waa 15 milyan taasna ilaahay wuu siiyay oo ugu daray saddex xoolo ugu daray aan adduunko dhammi haysan adduunko dhammi lahayn oo maxay tahay waa geela maalin dhawey nin dhalinyaraha ardayaha Soomaaliya ba research wuxuu ku sameeyay geela xoolaha u baranaya agroeconomic markaasuu professoradiisii wuxuu tusay geela faa'iidooyinkiisa caanihiisa iyo hilibkiisa professoradu waligood geel ma arkin iyagu geel ma dhaqdaan waa dal qaniya geelna ma laha geelna ma arag حتى هو عانو كوليسترول مال عانيسو سوق ماله دبات ماله عافمات بوليه هي odayaasha iyo caruurta labadaba u fiican yahay lafooda inay xoogsadaan oo ku koraan way yaabeen war waxay dhaheen the business weyn baa laga sameyn karaaye research kan Balario isaga ay sheegay researchkiisa markuu presentation markuu master degree-ga diyaarinay maana walba dhacda geeli uu ilaahay nasiiyay 6 milyan ka badan oo neef oo adduunka aan lagu haysan intaas waa tirada ugu badan bal ilaahay idinku dhaariyay fiiri Mareykan oo waa balaartay Canada oo balaartay Australia oo iska weynaatay China oo iska weynaatay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma siinin geela inta leeg adduunka waxa ugu badan oo geel haysta waa dadka yaryar midmadow ee halka fadhiya geeska Afrika fadhiya Soomaaliya buu ilaahay u khaasiyay وأدونك الثروة أنو هيسن أو غالي أو بهي كليجيد كليجيس وحكلا أنت اللي اسكدايو با غني أمة الصومالية ضرنا لباتن كم مليون كفلانو كل جود تنشر ساعة كرا هدي لك شقيسي
dadka ka shaqeynayaan way joogaan ha u malayn inaanay joogin khubaradii Soomaaliyeed jooga oo aqoonyahanka Soomaaliyeed jooga oo jaamacadaha adduunka ka shaqeynaya professorada ka ah ee xoolaha iyo beeraha ku dhaqidooda ku takhasusay ma idinkeena anigu marta kiineba raba hayla soo xiriiro kii raba oo daacad ka ah kii daacad ka ah haddaan u keeni waayo 100 nin oo kulligood ku takhasusay haddaan u keeni waayo ana qaldan ana been sheegay been ana sheegay laakiin keeba daacad ka ah waxaan ogahay qaarkiin intay u tageen oo ay u bandhigeen inay ka shaqeysan waayeen ahay marka wadan muxuu dhoofiyana waa lagu qiyaasaa sheeka baralay annaga yaa nolol iimaanin annaga ma nihin dad oo maaragtay dhaga xiran ma nihin adduunkan aragnaa waa caalamkan waxa akhrina dadka Soomaaliyeed ma dad indhala ma afarta qaaqliyaasha iyo internetyada ka qaylisana ma aha ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ummad dad muxurla ku jira dad wax garanaya ku jira marka yaa loo malaynin wax iska madmuusano wixii la doono lagu shubi karo ma loo sheegi karo la oranayo waxba lama sameyn karo waxa lagu qiyaasaa export and import iyo export and FDI waxa la yiraahdaa FDI adduunku wuxuu u yaqaanaa maalgashiga shisheeye ee dal kale soo gala adduunku waa kala faa'iideysta adduunku waa isku nool yahay anigu haddaana lacag haysan xooli baan haystaa soo maaha arigi baan haystaa soo maaha kaasuna lacagtii buu haystaa arina ma haysto xoolana ma haysto beerna ma haysto biyana ma haysto waa adduunku saasuu isugu noolyahay marka waxa la yiraahdaa foreign direct investment adduunka waxa lagu qiyaasaa wadankee ugu badan sanad walba waa la fiiriyaa war sanadkan keebaa nasiibka ugu badan qaatay qaybta ugu badan wadankeebaa qaatay qaybta ugu badan oo lacagta shisheeye oo dibadda ka timaada ay wadankiisa soo gashay waa la xisaabiyaa adduunka waa la cabiraa waa la qiimeeyaa waxyaalo lagu qiimeeyana jiro oo qofka de raasumaalka isagu keensanaya dalkaaga wuxuu rabaa nabadgelyada wuxuu rabaa inuu nidaam heli karo wuxuu rabaa infrastructure inuu heli karo iyo meel uu maro wado uu maro airport uu ka soo dego yaani ilaahay khayr ha siiyo maalin dhaweyd waxaan u jeeday yaani ماشي سيد محمد عبد الله حسن الله نحرسته طلع سوت بنايه marka aad iyo aad baan u jeclaystay marka waxay leeyihiin dadka Soomaaliyeed hay yimaadaan dalxiis oo meeshan dalxiis u soo aadaan ficlan waa meel dalxiis ku fiican waa meel taariikh ah waa meeshii ugu horeysay oo Ingiriiska yaani mustacmaraadka adduunka markuu adoonsan jiray yaa mustacmaradii Afrika ugu horeysay iyagu yiraahdeen warbixinta maaha Afrika ugu horeysay adduunka meel mustacmara ah oo uu diyaarad ku duqeeyo gumaystuhu taleexa ugu horeysay Sayid Maxamed oo diyaarad ay kula dagaalamaan oo gumaystaa meel kale adduunka ma jirin ee ka horeysay waa mustacmaradii ama isticmaalku ugu horeeyay ee uu diyaarad u adeegsado markuu loodin kari waayay weliba dhowr jeer bay soo noqotay taariikhdeeda hadda ma gelin laakiin saaxiib waa taariikhe xagee lagu soo maraa kii Soomaaliga ahaayo hadda joogay Kenya joogay ama London joogay ama Faransiiska joogay baaba ku imanayo diyaara inuu yimaade xagu soo maraa ishag meeshu soo maro diyaaradee soo raacdaa hotelkee seexdaa wadadee soo maraa yaa tala soo gaaraa adduunku waxbaa ka horeeya dalxiiska iyo taariikhda iyo waxaaga saa u qiimayso buurta ku taala maxaan ku sheegaa Cape Town ee la yiraahdo Mountain Table Mountain la yiraahdo Table Mountain waxa la dhahaa buurta miiska ah waa buur yaro magaalada Cape Town korkeeda marka maalin walba 250 ran baa lagu qof halkii qofba bixiya oo dhaladeeda inuu fuulo kun jeer buuraha Soomaaliya ku yaala oo anigu aan aqaan qaarkood baa ka qurux badan oo ka wanaagsan oo ka hawo fiican oo ka macaan yaa oo ka dalxiis fiican oo ka barwaaqo fiican laakiin ma waa buur aan dad lahayn de midna dadkeeda qiimeeyay midna dadkeeda qiimo tiray Soomaa marka waxa lagu qiyaasaa wadamada horumari waxa lagu qiyaasaa saaxiibow waxa lagu qiyaasaa maxaad dhoofisay arigaagi baa dhoofin kari laadahay suuq baa u raadin kari laadahay ganacsatadaadii iyo dadkaaga wax dhaqan lahaa maamulada laga rabaa inay raadiyaan maaha dadka shacabka dadku xoolihii waa hayaan geelina waa hayaan arigina waa hayaan loodina waa hayaan dawladda waaye shaqadeed
inay suuq soo raadiso dowladaha kale la soo heshiiso tiraada hilib anaa idinku qarqinaa idinka buuxinaya keena qaat dowladaha la rabaa inay maalgashadaan maalgashi baa diyaar ah oo dibadaha jooga oo muslim iyo gaalba leh oo meeshiisa inuu kaga soo qaato diyaar u ah lama waayeen haddii la raadiyo laakiin waxaan ognahay inaynaan dee shaqadeedaba aan loo dhaqaaqin taasna waa lagu qiyaasaa qodobka lixaad oo lagu qiyaaso waa infrastructure waxa la yiraahdo ama kaabiyaasha dhaqaale baa wadan lagu qiyaasaa horumarkiisa ama dib u dhacaysa kaabiyaasha dhaqaale maxaan ka wadnaa kow wadooyin xagee la maraa wado ninkii raba inuu maalgashado wado u baahan waxaa loo baahan airport waxaa loo baahan dekedo waxaa loo baahan koronto warshad haddaan rabo inaan ka dhisto magaalo koronto aan u baahanahay waxaan u baahanahay wadaan u baahanahay dadku ii soo maraan waxaan u baahanahay airport caadi aan ka soo dego waxaan u baahanahay biyo aan kala go'ahayn waxaan u baahanahay caafimaadka meelaan ka heli karo waxaan u baahanahay tacliin yani waxaa soo dhammi waa railway baan u baahanay train meel aan u raaco kaabiyaasha dhaqaale dadka qaar baa waxay u malayaan fikrad qaldan oo aan ku arkay way dadka mas'uuliyiinta qaarkood aan ku arkay oo siyaasiyiinta qaarkood waxay ku leeyihiin annaga hadda waxaan ka shaqaynaynaa wax kaleeto oo dib u heshiisiin iyo dastuur iyo institution iyo siyaasad yani wax un hadal hotel hebel warka ku qabo sheekay kana ku qabo sheekay siyaasaddu miyaa la cunaa siyaasaddu waxay waa maamushaa siyaasaddu waa saasa yasuusu siyaasatan waxbuu maareeyaa maamulaa waaye maxii la maamuli lahaa aawey siyaasadda miyaa la cunaa hunguri miyay noqotaa adduunku waa dhaqaale bini aadamku wuxuu ku nool yahay laba ruuxdan ilaahay geliyey iyo jirkan ilaahay geliyey inuu ku noolaado wuxuu cuno oo uu helo siyaasad lama cuno markaa siyaasadii ma noqoto dhaqaale la cuno rootina noqon mayso bariisna noqon mayso isu bedeli mayso waa inaad la timaadaa marka infrastructureka waxay ku leeyihiin gadaal ii dhig maya infrastructureka horay soo dhig arrinkaa in la fahmaa infrastructureku gadaal ma yimaado horay buu yimaadaa maxaan ka wadnaa macnaha horay buu yimaadaa hadda waxay ku leeyihiin waa on hold dalka dhismihiisii waa on hold يعني وعلقيه ما داعي لما قارين ولي قرتي وحلا ديسلا ما داعي لو قاري واي economic growth كان شيغين employment كان شيغين شقا ابور كان شيغين دوفنت ان شيغين مالغشيغا ان شيغين ربو انو يمادو كلغود waxay ku tacalluqaan kaabiyaasha dhaqaale waday u baahan yihiin erboray u baahan yihiin isbitaalay u baahan yihiin dekeday u baahan yihiin taas markaad samaysato dadku waa ku imaanaya shaqadii baa abuurmaysa lacagtii baa isdhaafaysa marka laakiin weelkii way infrastructure-ku sidiisa waa weelkii way weel haddaadan lahayn xaggee wax lagugu shubaa maxaa wax lagugu siiyaa xaggee laguu soo marsiiyaa ma jirto haba yaraate marka ilaaha idinku dhaariye weydiiya idinka waddadii aawe madaxdu iyagaa meel ay maraan ayan haysan 10 sano 15 sano ayay joogaan 20 sano wadda ay maraan ma haystaan airport ay ka degaan ma haystaan biyo iyo koronto u socdo magaalooyinka jooga ma haystaan dameer baa loogu dhaamiyaa iyo rati iyo awr iyo fuust muxuu rabaa marka qofkaanu xaggee u socdaa muxuu yahay waxa uu sheegaa horumarka uu sheegaa oo ka hadlayaa muxuu yahay dambas baa dadkiisa dhex fadhiyaan isagana dambas ku dhex fadhiyaan qaabkee loo sameeyaa infrastructure-ka sheeko kale waay ma la samayn karaa haa boqolkiiba kun boqol waa la samayn karaa haa oo maxaa dhacay ku tiri dee dadka kula midiba way sameeyaan maalin walbay sameeyaan oo kula duruufa ama kaa duruuf liita baa sameeya la imow adiga horta rabitaanka horta lagaa helo ugu dambeyntii maxaa reserve dalka u yaal maxaa reserve u yaal central bankigiisa maxaa ku jira dalka waa lagu qiyaasa wadanka intee reserve leey kayd dhaqaale intee leey toddobadaas bal idinku hordhiga infrastructure saaxiibo maxaad samaysay aniga ii sheegin maanta xafiiskan halkan kuraas baan dhigay meeshan waxbaan miisas baan dhigay halkan maxaan ku sheegay maxaa infrastructure ii sheeg waddo ma haysaa
koronto ma haysaa train ma haysaa gaadiid dadkii maraan ma haysaa isbitaal dadkii lagu daaweeyo ma haysaa yaa maxaa haysaa ii sheeg wax export maxaa xoolahaagii xaggee geysaa ma haysaa ma samaysay wadamo waxaa jira ku nool wananka keliya saan marar badan sheegay wananka keliya ku nool yihiin idaha Australia iyo New Zealand iyo idahay ku nool yihiin wadamada qaarkood lo'da caanaheeda ku nool yihiin يعني هولند iyo Denmark iyo Alkiyo waxay ku nool yihiin lo'daas caanaha ay ka maalaan oo ay ka dhigaan marka badar ay ka dhigaan oo maartay yogurt ka dhigaan oo kada ka dhigaan oo kada ya suba ka dhigaan wax kale ka dhigaan saaxiibow hadii arrimahaas baa lagu qiyaasaa war anigu cidna si gaar ah uma maagayo sanamkiina gaarka ahna kuwa sanamyada qabiilka caabuda sanamkiinana aniga hadda maba la hadlaayo uma jeedaba saga burburi doona meesha ka bixi doona ama adiga ku ag dhiman doona danka malihi gashay ama kuma gelin aniga waxaan ka hadlayaa maxaad ku noolaataan iyo adduunku see u noolaadaan seesa u xisaabtamaa adduunku horumarkan uu ku qiyaasaa arrimahan haddii arrimahan la hayo oo aan anigu diido markaas horumarka ragga anaa u diiday hadday iyagu la imaan waayaan iyagaa la imaan waayay wixii horumar loogu qiri lahaa eedu dadka ma aha marka taasna halkaasaan uga baxay waxaan ugu dambaysiinaya caqabadaha qodobka faraha caqabadaha imanaya qofku xuranaya maanta dhan annaga Soomaaliyeed banaanka adduunkan maartay nala dirirsan World Bank baa nala haaday IMF baa shuruudan ugu xirtay maxaan ku sheegay hebel baa ugu xiray maxaan ku sheegay annagu waxba eeda waxaan saaraynaa Ethiopia saana yeeshay Kenya saana yeeshay Americana saana yeelay hebel saana yeelay maya quraanku wuxuu nabaray haddii dhibaato kugu dhacdo oo jab ah ku gaaro sababteeda asalka aday ku soo noqonaysa hadday jirto sabab dibadda ahna kan guduhu ka faa'iideystay kaaga ayuu ka faa'iideystay saasuuna ku soo galay ee kuma galeen marka asalka adigay ku soo noqonaysa laba gooraba dhibka dibadda iyo dhibka guduhu aduu ku soo noqonaya marka saasuuna baray quraanku awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hada say arrintaanu noogu dhacday qul huwa min cindi anfusikum jawaabti saasay noqotay ilaahay qul waxaad ku tiraahdaa nimco min cindi anfusikum idinka u sabab ah asxaabtii baa saa lagu yiri Soomaaliyay in idinka la idin yiraahdo xuma min cindi anfusikum innaga isugu sababa inaan halka fadhino innaga isugu sababa cid kale to eed ma saari karno cadowgu muxuu ii cadaawayna waa aqli xumo inaad tiraahdo oo aba cadoway maxaad ka sugaysi horumarkaygu diidan yahay oo Soomaaliya horumar waa loo diidan yahay oo waa la og yahay cadowgu inuu ku diidan yahay adigu waxaad samayn lahayd aaway ma tashat dalka soo adigu malihid dadku soo dadkaagii maaha ilaahay aqli iyo soo kuma gelin awood soo kuma siin qof wax raba idina ma hor istaagi karto dhulkana annaga leh annaga xor u ah dalku dalkaygii way qiimu leeyahay laakiin haddaan anigu rakhiis ku iibiyo oo aan ka dhigo dalkaygii waxaan jirin oo qiimo lahayn haddaan ka dhigo dee qiimo ma yeelanayo anna qiimo ma yeelanayo waxaan leeyahay marka walaalayaal Soomaaliyeed aan qiimo isu yeelno oo gaar ahaan dadka madaxdaayo war wax weyn baa haysataan faqiir ma tihiin maalin walba waxaad ku celcelisaan oo aan ka xanaaqnaa faqiir baanuna sabool baanuna imaaraado qatarow sacuudiyo kanow war waa dadkaan sadaqada siin jirnay annaga shalay war shalay baan zakada siin jirnay war shalay xaajiga Soomaaliga ah markuu tago Xijaaz waa lagu dhegdhegi jiray oo la baryi jiray dhul hodan uu ka yimi waxay ugu yiraahdeen odayaashii hore oo xajka tagi jiray markaan oodkaca iyo timirta iyo adduunka iyo khayrka annagu wadano jicsinka aanu xajka u qaadanay waa waagi maraakiibta la raaci jiray oo la lugeyn jiray ya kuntumeeyadii iyo afartameeyadii iyo soddomeeyadii wayna baryi jireen jidadkay noo istaagi jireen markaasaan wuxuu reebi jiray xajka markaanu dhamaysanana
furdug waa soo carari jirna ma joogi jirin hal maalin kuma nigaan jirin waa dhul saxraa oo cidlaa bay ahayd meeshan imaaraadka hadda leeyahayna shalay bayba iyadoo ahayd warkeedu maba sii fogeyn 70-yadii hadda wey annagaa soo gaarnay iyadoo faqiiro annagu aanu diidanahay xataa safaarad inaan ka furanno ay dowladda Soomaaliyeed xataa lagu tirtirsiiyay walaalayaal kale safaarad ka furto kale safaarad dhulka qaat oo magaalada Abu Dhabi bartamaheeda aanu idinka siino dhul baanu idin siinay kale billahi calaykum Soomaaliyeed safaarad ka furto oo anagu dowlad cudmaan ahayna sida dowlad weyno aanu diidayna leena war meesha saxraa waxba safaarad inaan ka furno nooguma jirto maslaxada marka war dhulkiinu inuu qiimo leeyahay idinka ma taqaanin horta mase maartay xoogaa daraahimta kaliya aragteen oo hadda maartay waxa damiir laawayaasha inta loo soo dhiibo boorso la yiraahdo Soomaaliya oo dhan sidii la iibsan karo Soomaaliya oo dhan lama iibsan karo haddii dad yar la iibsan karaa ay hadda jiraanna dad baa iman doona aan la iibsan karin insha Allah ta'ala maalinteeda imanayaan kuwaasaana Soomaali dal iyo dad sharaf u yeeli doona wala alla waqtigeeda inuu dhiman yahay baa dhici karta oo hadda aanay ahayn قدرتنا هذا ولي آني إيمانين أو إلهي سبحانه وتعالى وقدرين خير ما يدين رجينا إن شاء الله تعالى عشان تاسقطب جعل يستفرين تذا إن قلبت كسو كوبو إلهي وحن كبريا أنت أنا ديمان إنه نتصه صوماليا أو تبرت هذه شرفت هذه يحوق هذه يقود هذه إلهي سبحانه وتعالى سيء إلهي سبحانه وتعالى عدو قلنتو شرفت هذا التقان وقيمة هذا التقان oo waxa ay goyso taqaan waxaan leeyahay qasalaada dadka qaar waxay qoranayaan hada adduunka markaa tagto meel anu faqiir baan ahay lacag iyo maxaa faqiir iga dhigay dal baan baleeyahay maxaa faqiir iga dhigay baddaasaan baleeyahay maxaa faqiir iga dhigay xoolahanaan baleeyahay laakiin dhibaatadu waxay ka jirtaa horena waan u sheegay madaxda Soomaaliyeed dadkooda iyo dalkooda ma arkaan indhahoodu xaggaas u jeedaan kor xaggaas u jeedaan Abu Dhabi Doha رياض نيويورك لكن ما أركو هالكن ما أركو ضد كان هالكن جوجا يوم ضد هالكن جوجت يقول كان وحي هلا ما أركان أنت بدن ما أركان ورا الله إذن سيو إيمان كذا إذن قليو وكرسوني ذي إذن قليو وضد كنا إن أذكر كرسوناتان أو ضد كنا كرسوناتان الله إذن قليو ماشينا لا إذن كو إيمانا يا ضد كوحدونا يا أو أدون كوحرادين يا وحى هذا يستان بودون كوبهية هالكنو إذن كو إيمانا يا إن شاء الله تعالى ما أنت قيمة هذا القرطان إن شاء الله تعالى إلهي وحن كبر يا أمد الصومالي شرف عزي إنه إلهي يدين كنا وليه ربنا سبحانه وتعالى دينته يحق فهمسيه أنت ما ركتي وضد كوي عطينا إلهي سبحانه وتعالى وضد حقه كنتو سيو كسو عليو أموره إلهي سبحانه وتعالى مديو كلمته مديو إلهي سبحانه وتعالى أنت ونكسنت لدى وقديبو الله سبحانه وتعالى خيرك وافجيه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلامته